السلام عليكم markale muuqaal cusub oo ku saabsan koorsada yahay web development 101 oo lagu baranayo HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery. Marka maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay heading iyo paragraphs, maxaa la dhahay, sida loo isticmaalayo, qaabka loo adeegsan karo. Marka muuqaalkan hore aan ku sii galgano waan arki doonaa marka meesha marka waxay ahayd folderkii aan ka samaystay desktopkayga oo ahay HTML basics. labadan koor marka waan aragteen oo sida loo sameynayo structure-ka iyo indexka sida loo abuurayo kulli. Marka maanta waxay tahay in la sameyn doono heading waxa la dhaho iyo paragraph. Markii aan soo kacsado code editor-kayga meesha lagu qoray code-ka waxaan sameysan doonaa marka new file oo magaciisa la yiraahdo heading ayaan hadda dhahaynaa. marka heading dhahno iyo paragraph and paragraph bent .html la raacsin doonaa. markaas ujeeda hadda marka heading and paragraph waa sameynay oo wuxuu yahay marka HTML document waaye, laakiin looma qorno marka structure wixii loo baahnaa dhan ma sameysno oo hadda wax code ma qori karno. marka waxaan u baahanahay marka structure-kan inaan soo koobiyeyno kulli. marka aan dhahno soo copy, markaan copy dhahno aan u imaano marka isla meeshii oo ahay heading iyo paragraph-ka isla meesha marka aan ku paste gareyno aan title-ka marka waxaa inoo qornaysaa ogeedeen heading and paragraph. heading and paragraph markii aan qorno aan save dhahno marka kaynta wuxuu noo galayaa HTML basics dhexdiisa ayuu wax jira. marka live markii aan soo kicino soo jeedada waa heading and paragraph-ka inoo kacsan. waan yareysan doonaa oo kan dhinacana dhigan doonaa si labadooda aan u kala aragno. marka wixii kan aan ka sameyno aan isla markiiba aan aragno. marka okay, markan halkan iga siki oo kan yareey asigana. marka hadda waxaan ku dhex jirta ujeeda body-ga. markii aan body click ku siiyo meesha waxay noqonaysaa blue sababta wuxuu sheegaya marka body-ga inay tahay haalaha meeshan oo ujeedan in wixii lagu qoraba aan arki doono. marka marka hore aan ku gali doonaa marka heading ayaan ka bilaabi doonaa. heading sida loo isticmaalaa sida la marka waxaan u maleynayaa marka heading waxa dhan horta waa fahansantihiin haddii aad koorsadaan soo qaadatay casharadii ugu horeeyay, qaasatan weliba chapter-kan hadda ku wada jirno oo la yiraahdo HTML and basics and understanding HTML. marka waa fahamteena fila oo si qoto dheer body-ga heading wax dhammaan markaa soo aragnay. marka hadda heading marka markii la sameynayo waxaa la dhahay waxaa jiro 6 heading oo badnaa la wada isticmaalo heading 1 ilaa iyo heading 6. marka marka waxaan ka bilaabi doonaa marka heading 1 marka waxaa dhehaysaa marka kaliya h1 oo markaas u qorto as automatic ahaan isku soo xiraya. marka uun baahnid marka mid kale inaad soo xirtid heading marka qorto halka marka waxaan ku qorayaa heading 1. saa ujeeda marka hadda kan waa heading 1 fartiisa waa ujeeda saan ayay weyn u noqonaysaa oo dhinacna ujeedo browser-ka iyo kacsan. marka heading 2 na haddii la fiirsho h2 la qoraynaa ana soo xirno heading 2 ana ka dhigno heading. waa ujeedaa waa isku farti laakiin heading 1kii waa uu ka yar yahay. heading 3 marka hadana aan arki doonaa h3 haddii aan qorno asigana heading 3. marka hadana heading 4 h4 aan soo xirno heading 4 aan ka dhigno hadana aan heading 5 aan tagno heading 5 caadi dhigaysaa waa xiraysaa kaas waxaa qoraysaa heading 5 kasoo tag heading 6kii oo ahay ugu dambeeyay xer oona ka dhig marka heading 6. marka saa ujeedo hadda body-ga meesha wax lagu dhex qoray waxaan ku sameynay 6 heading
oo badnaa la wada garanayo oo muuqaaladii hore oo koorsadaan haddii aad soo qaadatay aad fahansan tahay oo markii sida koortig loo qoray keliya ku dhimnay doonaa sida loo qorayna saan bay ahayd oo waxay tahay marka heading 1 oo loo furayo h1 haddana la xirayo h2 markaas dhexdeeda marka maxaa loo tagan marka adiga badnaa waa fahansataa umaleyna waa akhristaa website-yada waa gashaa kasoo qaad marka hadda camal posti ayaa lasoo dhigay marka tusaale ahaan camal Facebook page badnaa waxaa umaleynaya inuu ku qoran yahay marka kan ama kan camal ku qoraya marka ciwaanada meelaha ah iyo kan oo badnaa la wada adeegsado oo ciwaanada loo talagalay marka kow lama saddex macnaha ciwaanada iyo textiga heading 4 badnaa la adeegsadaa markii texti ciwaan la qoro kan labaad wuxuu noqon doonaa marka paragraph ciwaanka marka la sameeyo wuxuu noqonayaa marka text ayuu noqonayaa oo ah heading 4 badnaa la adeegsadaa laakiin waa la wada isticmaali karaa laakiin ay ka dhan waa la isticmaali karaa marka muhiimadda marka heading 1 ilaa iyo heading 6 loo wada isticmaal waxay tahay in styleka website-kaaga waxa la soo dhigayo ama waxa aad sameynayso inay dadka wada fahmi karaan ciwaan wixii ahaado wixii muhiim ahaa in loo kala saaro marka saas ayay muhiim u tahay marka heading-ga in la wada isticmaalo marka hadda marka waxaan u tagaynaa marka paragraph maxaa lahaa iyo qaabka loo adeegsadaa marka paragraph markii la sameynayo saa hore aragteen waxaa loo baahan yahay tag lahay b in la furo haddana lasoo xiro marka hadda tag waan furay waana xiray markii aan wax ku qoro sidee noqon doonaa iyo waan arki doonaa soo ujeedo waxaan ahay arday wax ka barta college marka hadda tusaale waxaan sameynay ujeedo paragraph ayaan sameynay marka paragraphkan waan sameynay oo waxaan dhexgelinay tag haddii aan kan copy gareyno aan halkan ku paste gareyno aan ka bixino marka paragraphkan oo tagi paragraphka kii soo xiray kii furay aan ka bixino ana send aan marka labadaas ujeedo marka website-ka si ayay u soo muuqanaysaa oo wax isma dhaamaan laakiin muhiimadda loo isticmaalay paragraph maxay tahay marka muhiimadda loo isticmaalay paragraph waxay tahay markii la sameynayo markii aad doonaysid macnaha in aad paragraphkan oo ku qoran style-kas aad sameysid ama wax aad ka bedeshid oo style ahaado qorxin farta wax dhan inaad sameysid marka ma ka sameyn kartid markan oo paragraph la-aan tagi paragraphka hay ka maqan yahay laakiin aad ay u fududahay oo paragraphkan aad dooranaysaa bas aad wax u bedeli kartaa marka kaysas u dooratid kan waa kala soo calaameynaya kan haddii aan tago ujeeda bodigii ayuu calaameynaya marka fahantay haddii waxa bedelaa dhaho bodigii wixii ku jiro heading wixii ahaayeen wixii paragraph wax dhan is bedela laakiin aniga hadda paragraphka kaligiis waa waxba laga bedeli karaa marka muhiimadda loo isticmaalayo marka paragraphs ayay tahay in uu ku fududaan marka in wixii aad doonaysid isla markii halihii adiga arabtid aad ka bedeli kartid marka meesha marka waxaan ku soo qoray heading 1 heading 2 heading 3 4 5 heading 6 ayaan soo qoray marka heading marka waxaa loo adeegsan karaa marka qoraal text wixii rabo ahaado marka ciwaana ka dhigi kartaa oo maxaa dhihi kartaa web development aan dhihi kartaa web development markaa dhacdo ciwaan ayaa ka dhignay hadda kan waan ka jaraynaa saddexdaas soo hadda ujeeda marka maxaa website-ka ku soo baxay theory website-ka markii waxa uu ku soo baxay ciwaan oo ah web development waxaan adeegsanaynaa marka heading ayaan adeegsanaynaa anaga kan oo web development meeshan ku qoran tahay oo waxay tahay heading 1 marka paragraph ayaa meeshan ku qoran laba paragraphkan iyo paragraph oo dhan bodiga iska raacsan oo meel u socdo la ogeyn haddii marka kan waxa ka bedelaynaa dhahdo kan bisa ka bedeli karnaa kan laga bedeli karo kan waxa ka bedelanaa dinaan labadan buu saameynaya ma fahanti marka paragraph muhiimadiisa loo isticmaalay ayay tahay heading loo isticmaalay muhiimadiisa saas waaye waa fahanteena fiilaa marka ayaga ahaan horta hore dhac mar hore sameynay had kaliya wuxuu baahnay marka in la gudi karo marka
muuqaal hore aan ka sameynaa jiray oo haddii youtube-ka muuqaalkan youtube ka fiirsaysid description soo dhiganaa haddii facebook ka fiirsanaysidna facebook wejigana ka helaysaa wixii talo iyo ama su-aal ama wixii macluumaad waxaan nala soo wadi kartay marka whatsapp numberkeena ama instagramkeena marka waa ku mahadsantahay muuqaalkan inaad daawato u diyaar السلام الله عليكم مركا waxaynu socotay koorsadii web development 101 oo lagu baranayay HTML CSS Bootstrap JavaScript iyo weliba jQuery marka koorsadan waxaan soo qaadanay cashiro badan ee ka soo qaadanay hordhacahadan iyo kuwa HTML basics ah kood la qorayo maanta muuqaalkan wuxuu ka mid yahay muuqaaladii hore oo ahay understanding HTML oo chapterkii labaad ahay koorsada aan ka sameynay HTML ayuu ku saabsan yahay marka muuqaalka marka waxaan ku baran doonaa in meelaha muhiimka ah paragraph tusaale ahaan paragraph ayaan qoranay paragraphki marka waxaa laga dhigayaa in meelaha muhiimka u ah markii dadka aqrinayaan camal inay ogaadaan am strong aan ka dhigno oo bold macnaha laga dhigo am emphasis oo laga dhigo jiif oo ka duwan qoraalada kale marka waan arki doonaa hore aan gulno marka warka kanan koobiyeysan oo wuxuu ahay muuqaalka projectgii ugu dambeeyay muuqaalkii ugu dambeeyay aan ku sameeyay marka kan markaan koobiyeysto new file aan qora oo la dhaho strong and emphasis markii aan dhaho .html ayaan raacsiinayaa marka kan hadda waan kusoo paste gareynaya marka haddii live aan kacsado aan kan iska soo yareeyo aan keensada live-ka marka saa ujeeda meeshaan marka web development waa heading waki kan paragraphki boojadii ahay iyo delete marka waxaan arki doonaa marka strong ayaan ka sameyn doonaa kabacdina emphasis ayaan ka sameyn doonaa markan waan bedelayaa title-ka waxaan ka dhigayaa strong and emphasis okay aan saas dhaho automatic isbedelaya saa ujeedo marka heading 1 ma rabo inaan wax ka bedelo paragraph kana rabo marka inaan wax ka bedelo paragraph marka waxaa ku qoran waxaan ahay arday wax ka barta college-ka Mano Production marka waxaan rabaa marka college-ka Mano Production inaan ka dhigo horta inta waa weyneenaya in aan ka dhigo bold oo madow sida kan camal madow tiq inaan ka dhigo kaliya marka waxaad adeegsanaysaa tag la dhahayo strong ayaad adeegsanaysaa marka tag marka halkan ku xirmanaya marka kana soo xiray marka waan qaadaya waxaan dhahayaa Ctrl X halkan marka ku paste gareynaya marka saa ujeedo marka waa isbedeshay Mano Production waxay u ekaatay marka kan oo web development ka ahay camal ayay u ekaatay oo bold weyn ayay noqotay marka waa qaab kale oo loo sameyn karo marka waxyaalaha muhiimka ah hadda waan isticmaal karaa marka heading 1 laakiin heading 1 hadii aan isticmaal aan dhaho waxay noqonaysaa marka weyn way ka dheeraanaysaa laakiin madow tiq way noqonaysaa stronga marka uu muhiimsan oo ka bedeli kara marka boskii loo isticmaala heading waxaas in laga dhigo marka strong oo ah madow tiq bold camal laga dhigo marka emphasis markan waxay tahay ona barta koorsada web development 101 waxaan marka web development 101 inaan asagana ka bedelo waxaan free tag oo lahayo oo emphasis la soo gaabshay kabacdina waxaan dhahayaa Ctrl X aan dhahayaa web development kan ku ekeenaya marka halkan marka ku paste gareynaya marka soo jeeda marka web development kan way ka dumnaatay sida kuwa kale camal oo qoran tahay oo jif ay noqotay marka emphasis macna Italian wax laga dhigay camal ayaa laga wadaa marka muhiimaddu waxay ahayd marka in meelaha muhiimka ah markii aad qoraysid code-kaaga ahaado HTML meel kala ahaadaba inaad ku sameyn kartid marka labadan trick oo ah strong iyo emphasis marka waxaan u maleynayaa in muuqaalkan fahamtay haddii waxyaalo kale u baahan tahay marka in la soo xiriir ama koorsadan u baahan tahay in laga caawiyo oo ah web development 101 YouTube-keena Mano Production Instagram-keena ama WhatsApp number-keena
asalaamu calaykum marka muuqaal cusub oo ku saabsan web development 101 marka waxaad kala socotaa marka kanaalka horumarka ardayda iyo bulshada iyo weliba website-yada qaar aan soo dhigayno korsadaan oo wixii faahfaahin dhammaan waxaad naga eegi doontaa marka muuqaalada dambe ama waxaad kala socon doontaan Instagram-keena iyo WhatsApp-keena marka muuqaalka marka wuxuu ku saabsan yahay oo ni kamid yahay marka website-kii koorsadii ahayd website sameynta ee ahayd web development 101 oo lagu baranayo marka HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, JavaScript marka maanta waxay tahay marka anagoo isticmaalno HTML inaan sameyn doono linki inaan ku xiri doono marka website-keena textiyaal qaar linki marka hore aan guda galno waxaa halkan igu sameysaysaa ujeedo kan ayaan soo koobiyeysanaya waa projectigii ugu dambeeyay ayna sameyno marka hyperlinks ayaa la marka waxaan sameyn doona waxay tahay hyperlinks hyperlink marka aan dhahay saa ujeedaad kan waa xiraya oo maanan raacsiinin HTML extension marka rename ayaa dhehaysaa .html raacsiinaysa marka sidaas marka hadda uu furmaday kiyaa ku paste gareynaa marka haddii aan live-ka soo kacsado live-kii waa kana waa soo kacayaa markaan soo kacsada saa ujeeda marka last projectigii ugu dambeeyay ayaan waxaan kusoo sameynay in laga dhigo fartisaan iyo saan marka waxaan rabaa marka maano productionka inaan ku xiro marka YouTube kanaalkayga linkiga YouTube kanaalkayga marka kaliya marka waxaad ugu xiri kartaa SEO strong leh aan waxaan ku xirayaa marka waxaan dheena marka tag la dhahayo ayaa furaysa markasta tagas la dhahayo marka uu furmado automatically uu isku xiraadiyo bracket isticmaalaysid kana marka si automatic linkiga soo galin doona marka si oo marka aad furto waxaan leeyahay marka linki si aan sida oo fahamto waa weyneynaya meesha marka waxaan ku furay tag oo lahayo tag halkan aan ku xiray marka oo maana production dhexdeeda ku dhex sameeynaya stronga muuqaalka hore soo daabto way fahamsan tahay oo u baahan inuu ku dhibeyso maleynaya hadda marka waxaan sameyn doonaa marka ref oo aad soo aragtay markii la bilaabayay casharadii ugu horeeyay ee laga bilaabayay marka chapterkan tuugan marka waxaan ku xirayaa marka youtube.com/ano markii aan sis aan dhaho soo ujeedo textigii ahay maanooga waxa uu noqonayaa hoos ayuu ku xariiqmanaya oo badnaa waa aragtiin website-ii email-adii abooqotiin inay noqdaan textiga hoos xariiqad iyo blue inay noqdaan marka kan haddii lagu dhufto marka waxa uu soo saaraya marka website-kii oo ahay YouTube-ka Mano Production marka hadda internet ayuu rawaxaas ma ahan marka linkiisa soo loo isticmaali karaa marka linki marka laba qab oo isticmaal kartaa linki hadda aniga waxaan u isticmaalay external oo ka baxsan computerkan oo linki furaya marka meel kale marka linki kale waa isticmaal kartaa oo ah page-ka ku xiri kartaa page-kan adoo waxaan ku xirayaa marka strong and emphasis marka waxaan leenahay marka strong-kii and emphasis kadib aan ku dhufado meeshaan oo Mano Production kadib lagu dhufto marka hadii aan soo cesho Mano Production hadii aan ku dhufto waxa soo baxaya marka page-kii hore oo ahay strong emphasis-kii kacsanay marka sidaan soo noqonaya oo hadda ma wax ma ku qorno okay strong emphasis-ka macna waa isla kii hadda aan sameynayno ma aha waan ka bedelaynaa marka strong emphasis-kana ka bedelaynaa oo warka waxaan ka dhigaynaa page-kan kale oo la dhahayo hyperlinks-ka waa ka hadda isticmaalno sax structure-ka ayaan ka dhigano structure-ka wax ma ku qorno marka adiga marka saas waa ka dhigi kartaa oo waa saari kartaa marka linkiis yaa saari kartaa si fiican marka aan ku fahamsiiyo hadda markii la sameynayo linki in text lagu kor xiro koob waxaa loo baahan yahay in la furo marka linki ama tag la dhahayo tag eega markii saas loo furo halkan oo lagu soo xiraa marka tag eega tusaale ahaan hadda halkan aan ku dhex qorayaa body-ga dhexdiisa
marka taagi eega waa kana waa furay waa xiray marka automatic ahaan marka isticmaal ayuu xirmanay marka linki waxa waxay kartaa marka textiga ku dhex jiro meeshan ayaad linki ka xir kartaa marka sidee u xiraysaa marka kaliya waxa dhaysaa inaad meesha taaga eeda oo furan aad dhex tagtid aana ku qortid href marka href ku qortid ba internet oo si automatic aan ku soo qabto meesha marka wuxuu ku soo saaray marka page-ka ama folder-ka aad dhex jirtid wixii documentiga kacsan hadda waxaan dhawaan soo sameynaysaa ogtihiin haddii mid aan ku dhufto mid ayuu soo saaraya marka index aan ku dhufto kii index ugu horeeyay projectiga ugu horeeyay oo text code aan qorno ayuu soo saaraya marka linkigaas marka aan ku dhufano marka waa marka saas marka laba qaab oo waxay kartaa la qaab waa sida hadda oo ah sida computerka dhexdiisa folder ah inaad ku xirto ama qaab kale oo waxa ugu xiri kartaa marka wax ka baxsan computerka oo aan tusaale ahaan link Facebook aan noqdo YouTube aan noqdo meel kale aan noqdo marka muhiimadda marka muuqaalka waxay ahayd in la ogaado marka linkiga qaabka loo xiri karo marka aad joogtid HTML aan qoraysid marka waxaan filayaa marka inaad fahamtay haddii aanan fahmin waxaa jira marka cashir hordhac aan ka sameynay oo ka saabsanay web development 101 oo ahay slides marka kuwaas waxaad ka heleysaa muuqaaladii ugu horeeyay koorsadaan ayaad ka heleysaa marka nala soo xiriir marka hadii wax badan u baahan tahay facebookgeena ama instagramkeena ama weliba whatsappkeena waadna ku mahadsantahay inaad muuqaalkan daawato